بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وسلام يا أمة الصوماليين ميلي كنا كنت هايبة وعنتكم سلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا سود هذا لما أنتين عادبان بدي وضع السلام يا لما أنتين إنه نشر قرية إن شاء الله بإذن الله كريم. نكي تشري وحولي ساك ويسو كعيرو نكي تشري وحولي عباديسان عندك كو هي عباديسان عندك كو هي دنيبا ويقول على عياري دنيبا ويقول على عياري ورمركان سلاده مدة كير نصو وبلدوش كداو aan muddo ka yar saaka yar nasad shaka daawaba waxaan arkayaa qoladii gafur culuska ahayd oo reerkii ku dhex shirbaynaysa. ya salaam waan salaamaya inoo sheer gareeya. maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo marxaladan siyaasiga ah ee heega soo maleegtay ee lagula dhex jiro garxajis sawirkan qaldan ee la bixinayo horena waan uga hadlay. imikana waxaan jeclay inaan bal ummadda ka wacyigeliyo sida qaldan loo gelinayo, qaybinta lagu samaynayo, mashruucyada qaldan loo isticmaalayo, gafuur culusta hogaaminaysa ee marka ina bixi hor fadhiyo foorarsanaysa ee gafuurka hoos rogaysa ee qalimaantiya bugaagta ku mashquulaysa ee aan marka uu gafuurka kor u taago wuxuu doono uu yiraahdo dhageysanaya iyagoo is mashquulinaya. wuxuu cibaadaysan cidiga ku hayay cibaadaysan cidiga ku hayay daniba uu igu cilin ciyaaraha waradaan su'aalo muddo ka nasta oo badusha ka daawada waxaan ka adkaysan karayn gafuur culus taa gafuurka hoos fuuranaysa markayna buux hoos fadhiyo hoos fadhiyaan ee qalimaanta iyo bugaagta ku mashquulsan ee waxaan ku siyaasadda qaldan ee garxajis lagu qaybinayo ee ummadda sida qaldan loo tusayo war ninna cashuurtaada war garxajis waxaan leeyahay garxajis waxaan leeyahay tani idinkeed ku socotaa maanta barnaamijkaygani idinku egyahay. war waxaan idin leeyahay war cashuurtiina cidna marti ugama tiidin ninna ka martii mayno cashuurteeda walaa heegaanaan ka martiyayn walaa gabiiley baanaan ka martiyayn walaa berberaanaan ka martiyayn walaa inan kan yaree la yidhi horumarinta waddooyinkaad haysataa ee ciise muuse aanaan ka martiyayn walaa ina bixi baanaan ka martiyayn. waxaanu nahay baableeshinka ugu cashuur bixinta badan sida loo kala baableeshin badan yahay ee loo kala degaan badan yahay ee loo kala dad badan yahay ayaa loo kala cashuur badan yahay. war ninna sacabka ha ugu tumin cashuurtaada 30 kilomitir oo caratu lagu dhigayo waxa lagu dhisayaa maaha lacag ka soo baxday jeebka ina bixi maaha lacag ka soo baxday jeebka ka yari Cabdilaahi ee Ciise Muuse wadooyinka haysta waa cashuurtaadii. ha ugu sacabatumin ha ku amaanin hoos ha ugu foorarsan wixii aad xaq u lahayd weeye. midka ina fahantaan weeyaan midka ina fahantaan inaad waxaan adigu leedahay oo aanad ninna ka martiyayn wax iyagu leeyihiin aanay ku siinayn. horta midka fahan midka markaad fahanto ina ku amaanimaysid ninna marti uga noqon maysid cashuurtaada. war ma waxaa aragtay nin dukaankii u lahaa iyo wuxuu lahaa iyo xoolihiisa qof ka martiya oo weliba yidhaahdo waad mahadsantay oo ugu nacamleeya oo gafuurka hoos foorriya oo waxaan ku wixii la doon lagu yidhaahdo oo ugu sacabatuma oo ugu niikiya miyaa waxaa aragteen? ceeb caleek waa ceeb caleek. waxay kugu tahay karaama darro, waxay kugu tahay sharaf darro, waxay kugu tahay qiimo darro inaad waxaagii nin khayrkaayo kula mid intuu gafuurka kor u taago adna aad gafuurka hoos foorriso oo aad qalin iyo buug ku mashquusho inuu wuxuu doono ku dhahdo inuu ku dhaw waxbaan kuu qabanayaa inuu ku dhaw waddaan kuu dhisayaa ma lacag u leeyahay buu noogu dhisayaa. war bal isweydiiya halkan ay sariyanayaan ree qolyihii garxajis weliba kuwii habaryoonis oo ay leeyihiin ood weynaa la xaasidaya. war ood weyna anaa leh cashuurta lagu dhisayana anaa leh
anay madaxa ii saarantay anay degaankaygii tahay laakiin waxa aan diidayaa inaad nin khayrkaaya xoolahaagii oo jeebka ku haysto kaa urursaday aad ku ammaanto oo aad moodo inuu wax kuu qabanayo xoolo uu jeebkiisa ka soo saaray wax kuugu dhisi maayo wadda kuugu dhisi maayo horumar kuugu samayn maayo xoolo uu reerkooda ka soo ururiyey iyo cashuuru ka soo qaaday gabiille iyo berberaa waxba kuugu dhisi maayo waxaan wax kuugu dhisayaa waa waxaagii waxaan wax kuugu dhisayaa ee aad weliba ugu niikinaysaa ee aad moodayso inuu wax kuu qabanayo horta waa xoolahaagii taago 3 nin baan idinka digayaa 3 nin oo aan 10 jeer in ka badan garxad suga digay baan idinka digayaa waxaan idinka digayaa inaydaan waxaa leediin iyo waxa idaan lahayn aad kala garan weydaan baan idinka digayaa waxaan idinka digayaa in dhexdiina virus lagu soo tuuro idinku qaybiyaan idinka digayaa waxaan idinka digayaa mashruuca bilaamay ee garxad lagu kala qaybinayo ee ciidagaliyaha habaryoons loo kala saarayo ee dhaqankii 30 sanadood lagu dhaqaayay dub loo bilaabayo ee socdaalkii ugu horeeyay ood weyna lagu tagay lagu soo xawilay ee nimanka gafuur culusta ah ee foorara ay hogaaminayaan ka digtoonaada aragtidiina waa inay koraysaa wuxuu yiri kala garan iyo geed qaar baa u qaba in ninka garxajis ee ka hadla ee dhaliila ee nidaamka wax loo qabanayo dhaliila inuu horumarka ood weyna ka soo jeedo horumarka ood weyne oo horumarkayga waxa wax lagu qabanayaa lagaagama soo shaxaadin xaafad kale jeebni leeyahay lagama soo siin waa cashuurtii adigu aad lahayd waxaan idinka digayaa jallaafooyinka isi saaran ee 30 sanadood garxaji siyaasadda lagaga xakamaystay ee dhaqaalahooda lagu urursaday iyo ragga loo adeegsadaan idinka digaya 30 sanadood ayaa garxajis oo dalka dadka ugu tirada badana Somaliland oo dadka ugu degaanka badana oo dadka ugu cashuur bixinta badana oo dadka ugu ganacsiga badana ayaa waxa jallaafooyin lagu dhigay in ninkaaga haldoorka ah ee siyaasiga ee wax doonaya dalka inuu ka taliyo in loo adeegsado gafuur culus waaweyn oo da'a oo iyagu ku calooshooda oo qura u shaqaysta oo marka uu ina bixi gafuurka kor u taago ee uu leeyahay dalka anaa qabsaday reerkaygii baa badiyay kuwaan ka badi dhagaysanaya oo qalimaan iyo buugaag ku foorarsanaya oo gafuurka hoos rogay kuwaasay ku daba faylaysaan kuwaasay wax ka dhageysanaysaan kuwaasay wax moodaysaan share gareeya horta share gareey intii dhaanka ku jirtaa ku dhufta shareka meel walbana gaarsiiya fariintani waxaan u dirayaa waa garxajis waxaan idinka digayaa nidaamka ku noqoshada lagu noqonayo xarunta ugu weyn xarumaha ay leedahay garxajis ee ood weyn ujeedada laga leeyahay baan horena idinka digay imikana idinka digaya 2 qodob baa looga dan leeyahay waa 2 qodob oo siyaasada in garxajis la kala gooyo la kala furo oo 2 qaybood laga dhigo sidii looga macaashi jiray ciidagaliyaha habaryoons heer baabayna gaarsiiyeen dhahan ciidagaliyaha habaryoons iyo saxaaq oo xitaa saxaaq ay ka jiraan habaryoons waa halka layna la gaaray waana qaab siyaasi mid waa qaybinta loogu talagalay in lagu qaybiyo garxajis si looga dhex faa'iideysto siyaasad ahaan cod ahaan iyo cudud ahaanba iyo dhaqaale ahaanba 2 wax alla wixii kulmiyo noqday heego oo la soo tufay oo ummadu baratay siyaasad ahaan iyo dhaqan ahaan halku yaallo cid alla cidii ka timi arab lahayd ee habar jecel lahayd ee Somaliland ahayd ee xisbiga ku jirtay dhirbaaxada lagaga soo dhuftay ee doonaysay meel ay ku aarsadaan iyo inay dalkan meel ay kaga qabtaan oo u fuulaan ay lahayd in waddan dub looga eriyo oo la yiraahdo habaryoons baa muxaafida oo sawirka qaldana la bixinayo habaryoons ayaa muxaafida waa ujeedada laga leeyahay in la yiraahdo ciidagalow habaryoons waa muxaafid oo way danaysatay in la yiraahdo wadaniyow waa taa reerkii wadani ka ahaa ee madaxweynaha ku doonay waa kuwa muxaafidka noqday ee deeska kaga dareera habar jecel iyo arabo iyo inta kala socota waa barnaamijkii heego ee jallaafada ahaa
ee siyaasadda ahaa ee curyaaminta ahaa ee ujoodooyinka fog laga lahaa waxaan arkayaa in badan oo u sacabtumaysa dhalinyaro badan iyo rag oo u sacabtumaysa baan arkaa war kuwaad u sacabtumaysaana waxaan hogaaminaya horta waa ayo who they are waa kuwama miyaydaan ka ilbaxayn waxaa la yidhi ari quluqul kama ilbaxo waxaan ku yidhi 3 nin oo aan garxajis uga digayay muddo dheer baan mar labaad idin ku celiyaan dika digo ninka la yidhaahdo inuu waran cadde iyo ninka la yidhaahdo cawil iyo ninka la yidhaahdo siciid sulub waa 3 nin ee loo adeegsado furfurka siyaasadeed iyo cududeed iyo dhaqan dhaqaale ee garxajis waa 3 nin ee laga soo bilaabo cigaal riyaale silaayo iyo kan maanta jooga intaba shirka ugu jiray waa 3 nin ee loo adeegsado furfurka iyo burburka garxajis waa 3 nin ee fududeeya jalaafooyinka loo dhigo garxajis siyaasadeed iyo degaan iyo dhaqaale waa kuwa maanta horkacaya waa kuwaan idin sheegay gafuur culusta ah waa kuwaan idin sheegayo ee gafuur culusta ee marka ina biixi uu sidaa gadhka u taago afka taagay uu ku faanayo hablahooda caayayo ee leeyahay waan dadka badiyay iyaguna gafuurka hoos u dhiga gafuurka hoos u foorariya ee qalimada iyo waraaqaha isku mashquuliya waa kuwa weey waa kuwa ka soo maleega madaxtooyada jalaafooyinka garxajis jalaafooyinka garxajis siyaasadiisa lagu baabinayo jalaafooyinka la doonaya inaad mar qura dalka taladiisa wax ku yeeran jalaafooyinka la doonaya in goboladaada iyo degmooyinkaada dhaqaalahooda lagu baabiyo jalaafooyinka la doonaya dadkaaga in lagu furfuro kuwa soo maleega ee qalinka iyo buugga u qaatay ku soo horkaca waa kuwa weey inta kuwa daba taagantiin inta siyaasiyiintiina u taqaaniin inta khadka iyo nidaamka ay wadaan u sacabtumaysaan wallahi baydaan guulaysanay markaa meel ku qorta waanu ka horeynaa oo waanu ka dambaynaa oo waanu fahmaynaa mar alla markaan israahdo war muddo ka yaranayso wuxuu banarkayaa gafuur culustiyo garshay garxajis oo habriyoonis gashay oo waxaan ku qodaysa oo iyana ciyaalkii dhalinyarada iyo carruurtiina wax magaratadiina sacabka tumayso oo qaar qabiilnimo ku raacsan yihiin oo waa reebel waanu sixignaa ku raacsan yihiin oo jifa ku raacsan yihiin oo qaar indhala-aan iyo aragti siyaasadeed la-aan iyo aqoon la-aan ku raacsan yihiin oo qaar badnac ku taageeraya yaa waduud waxaan idinka digayaa oo aan ku jeer idinka digay war ragga loo adeegsado furfurka garxajis ilaaliya waxaan taariikhdooda in yar idinka guud maraya ka soo bilow maxamed xaaji ibraahim ciga waa ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo waa inaga hooseeya waa shakhsiyaddii koowaad ee jallaafada garxajis lagu baabiinaya dhigay buu ahaa waa ninka sameeyey xeertu alif waa xeerka maanta lagugu qabsaday dhaqan dhaqaale adduunka la isku qabsada siyaasaddu waa laba waa cudud military iyo dhaqaale haddaad aragto dowladnimada waxaa la yidhahdaa labuun bay ku shaqaysaa maraykan baanu joognaayo adduunka wuxuu ku haystaa waa dhaqaale iyo ciidan ninkii labadaa xadhig xidhay ee yidhi ciidanka qarankuna ha noqdo habar awaliya alheegiya dhaqaalahana yidhi labada degme ugu dadka yar ee ugu bulshada yar ee ugu cashuur bixinta yar labada kastama ha la geeyo cashuuraha ha la mideeyo ujeedadu kalaha waxay ahayd inay sida Soomaaliland makato ujeedadu kalaha waxay ahayd ummadda bulshada ugu tirada badani ha ugu hooseyso ujeedadu kalaha waxay ahayd gobolada ugu tirada badan ee ugu populationka badan ee ugu cashuur bixinta badani hadumaan oo house loo dhaca ujeedadu kalaha waxay ahayd dadka ugu tirada yar iyo degmooyinka ugu dadka yari ha noqdaan kuwa ugu cashuurta badan ee ugu dhaqaalaha badan waa nidaamka xeertu alif loo sameystay waa nidaamka maanta kugu socda waa nidaamka maanta kugu kalifay cashuurtii lagaa qaaday in lagu yiraahdo 30 kilomitir baan ku dhisaynaa aad sacabka ku tunto oo ilaa kii burca joogay kii hargeysa joogay kii odwa joogay isu soo raacaan in alla intii gafuur culus ahayd ayna bixoos fadhiday ee dulmanayd ee calooshooda mooyay wax kale aan shaqayn jirin ayaan dara waxa anigu kuwa kama xumi kuwa iska shaqaysanaya ee wasiirada iyo waxa laga dhigay ee caloosh shaqaystayaasha kama xumi inay iska hoos yaacaan waxaan ka xumahay dhalinyarada aqoonta leh ee aan waxba ogeyn ee sacabka u tumaysa ee qaar sacabka ugu tumayaan
habaryoonis ood weynaan hayo horumarkayga laga xuy war ood weyne horumarkiisa nin garxaj saa ka xun mise ninka baabiye waa heego kor u guur wax ma garata hatee kor u guur oo maskaxdaadu halkan iyay ku soo mashquulile kor guur xeertu alif waxaa loo samaystay in dhaqaalaha dalka lagu qabto ciidanka qarankana absolutely intuu jiray waxaa ka tirinayay 3 nin oo ilmaadeer oo isu bedelayay inta ugu badanna waa iyaga budgetka dalka ugu badanna marka 3 meelood loo qaybiyo 2 qabood baa ciidanka lagu bixiya iyagaana gacanta u gasha hub iyo ciidan iyo tignika kuwaad lahaydna waad ku wareejisay labadii nidaam ee dowladnimada lagu qabsan jiray gacanta ku haya markaasaad maanta 30 kilomitir ciid lagu dhigayo sacabka u tumaysa markaasaad waliba ku mahad celinaysaa jilbaad dhulka dhigaysa markaasaad gafuur culusti wada foorarsanaysa markaasaad adna mooday wax lagu qabtay markaasaad mooday lacag habara waleeday wax lagu qabtay mid heega leeday wax lagu qabtay mid bixilay wax lagu qabtay no absolutely no xeertu alif qaabka loo dhigay waxa weeye horta in noqoto cashuur la bixiyo yaa cashuur bixiya waxa cashuur bixiya ah gobol waliba degmada ay ka baableeshi badan tahay ka cashuur bixin badan tahay xaqna u lahayd inay ka cashuurta lagu soo celinayo ka badato kana dhaqaale badata degmada kale degmo boqol kun oo qof ku nool yihiin ayaa lagu oranayaa ya way ka cashuur bixin badan tahay degmo milyan qof ku nool yahay 600 oo qof ayaa berbera ku nool waa 600 oo qof degaan ahaan 600 oo qof baa berbera ku nool 600 oo qof waxay cashuur ka bixisa maga dalka ka bixiso ayuu berbera xaq u leedahay maanta waxa lagu yiri burco milyan qof ku nool yihiin ayay ka cashuur bixin badan tahay how comes sidaad u dhageysan kartaa waxa laga iibiyay gabiile oo 100 kun oo qof wax ka badan aan ku noolayn ya ama 200 ama 300 tira ka badan aan ku noolayn ayaa maanta wax lagu leeyahay waa gobolada ugu cashuur bixinta badan oo kastamadii loo xiro ujeedada koowaad waxay ahayd markuu ina cigaal soo dhigay wuxuu yiri cashuurta hal miday meelaha cashuurta lagu qabto aynu yarayno isagoo u adeegsanayay inaan isagu deew adeegsanayo leeyahay corruption ka badanaya iyo xaditaanka iyo tugada badanaysa aynu ururino markaasuu wuxuu ku yiri labadii kasta waxaan ka dhigayaa labadii tuulay isagu u lahaa waana maalintii u dhex raaciyay inuu gobol ahaan ugu ansixiyo berbera oo aan gobol ahayn sheekhna burca ka jaro bal hadda waxa lagu la ciyaaray isku maalin qura labada la ansixiyay berbero gobol laga dhigay sheekho burca laga jaro berbera raaciyay labadii kasta oo la geeyay gabiile iyo berbera wadagaamadiisi markaasaa wuxuu ku yiri waxa la wixii cashuur dalka soo gashay la bixinayay waa in iyaga 10 loo jara kala 10 loo jara mulkii cashuurtu ka soo baxaysay baableeshi ku lahaydna waxa la yiri waxba loo jari maayo waxa lagu yiri oo aad dhageysatay shay kasta Soomaaliland halku ka soo galaha lagu cashuuro albaabka uu ka soo galay berbera wixii ka soo galay berberaha lagu cashuuro baa la yiri iyadoo taa aynu qaadanay ayaa hadana waxa lagu yiri albaabkii burca wixii ka soo galayay yaan lagu cashuurnay halka u dambeysay ka baxayso oo berberaha lagu cashuuro waxa dhageysatay maxaa keenay in berberana wixii ka soo degayay lagu cashuuro gabiilena wixii soo mariyay lagu cashuuro berberana burcana xoolihi albaabkooda ka soo galayay lagu cashuuri waayo la halkay ka baxayaan ee ka dhoofiyaan lagu cashuuro aqliyada ku weeyelay ee gafuur culus tahaaba ima kala horsada share gareey barnaamijka intiina ku jirtaaba share gareey waxaynu doonaynaa in dhalinyarada aan fahansanayn siyaasadda inay fahmaan waxaan doonayaa inaan taariikh yaro kooban inta ka siiyo ragga intii horkacaya ee aad siyaasiyiinta u taqaaniin ee ideoloogaya ee dhaqan dhaqaale iyo siyaasi iyo cudud intaba ay duuriyaaminaya ilaa isticmaalay ee iyagu ah wax calooshooda u shaqaysta xukuumaddii maxamed xaaji ibraahim cigaal allah yarxamo uu hogaaminayay ee waxaan oo jalaafo oo dalka taala laga dhisay laga sameeyay jalaafooyinkan dhaqaale
iyo kuwan degaamada la isdhaafiyey iyo xeerarkan ina dawakhiyo dalka isu xidhay iyo ciidamadan la qarameeyey ciidanka reerka laga dhigay ee hubkaaga lagu urursaday ninkii waxaasoo dhan sawirkaa bixiyey ee waxaan dhigay xukuumaddiisii absolutely 94 waxaynu wada gallay dagaalkaasi wuxuu ahaa miduu ina cigaal dhammaan isagoo baawarkii dowladnimo iyo kii xukuumadda dalka isticmaalaya kuu adeegsaday inuu dhammaan isaaq intii kale ay u noqdaan farda uu ku soo duulo oo ay dalku noqoto isaaq intii kale iyo garxajis maalinba cid baa ka hadhaysay oo fahmaysay laakiin halkaa markaa xilligaa halkaasay maraysay dagaalkaa xabadda aynu isla tagnay 94kii ujeeddadiisu laba midun bahayd in awoodda garxajis lagu curyaamiyo degaanada ay degaanna lagu baabiyo dalka uu kaga dambeeyo waayo dagaalkii innaga inagu dhacay dagaalkii innaga guud ahaan somaliland ku dhacay xilligii dowladdii kacaanka siyaad barre ee dalku ku burburay mid labaadoo la miisaana baa ku dhacay degaanada garxajista gobraca iyo dee habar jalaba la degtaa waynu qayb bay ka ahayd kuwii waxaan burburinayay dhinaca jibraan cigaal ujeeddadu lahaa waxayd inuu hirgeliyo wuxuu isagu doonayo dagaalkaasi markuu inagu socday u sii daadegi maayo noocu ahaaye markuu inagu socday raggii shirka u fadhiyey ee iyadoo xabadda garxajis ku socoto isaga la alliance-ka ahaa ee xabadda ka soo dhicridayay waa kuwaan dii tilmaamayo waa ina warcadde waa ina sulub waa cawil wallaahi baan ku dhaartay maalintaa iyagay la gogolahayen oo la fadhi ahaay ilaa maantana siyaasiyiintiina u taqaanay waa raggii xabadda halkii lagaaga soo ridayay fadhiyey bay ahaayeen raggii ka tala bixinayay bay ahaayeen ragga sirtaada ogaa ee iyaga ku soo raacay bay ahaayeen tii riyaalaa timi waxay yidhahdeen dhab libaax baan ku fadhinaa dhab libaax waa raggii awoodda ugu badan uu cigaalsiiyey wasiirada uga miisaanka wal istixsaana siiyey maxay qabteen degaan ahaan iyo dad ahaan maxay dhiseen waa waxba calooshooda u shaqaynaya waxay bilaabeen inay garxajis furaan inay u kala saaraan ciidagale iyo habar yunis inay u kala saaraan isxaaq iyo habar yunis inay inba meel kula faqaan wiiqaan halka ragna ay ka dhisanayeen awood heega ah reerkooda ka dhisayeen degaamadooda ka dhisayeen dhaqaalahooda ka dhisayeen cududaha militariya aragtay ka samaysanayeen iyagu maxay qabanayeen inay adiga ku furaan hadda awoodda iyaga haystay oo dowladda ka talinayay oo ina cigaal oo ina riyaalay gacanta u geliyay maxay bedeleen waxay ka shaqaynayeen intii nin ka shaqaynayay inuu dadkiisa iyo degmooyinkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo ciidamadiisa iyo nidaamkiisa kobciyo rag isguraye intuu taa ka shaqaynayay isagu muxuu ka shaqaynayay inuu adiga ku furfuro warwar wuxuu ka qabay kursigu ku fadhiyay nin kale oo garxajisa uu yimaado waa gafuur culusta maanta weli ku daba socota khasaare waxaan ahayn kamaynaan qaadin ka kaalay dowladdii siilaayo sidaas leeg bay ahaayeen oo kii shirka u fadhiyey tanaa timi maalintii ina biixi soo baxay ayay madaxtooyada isku shubeen saddexdiiba madaxtooyada fadhiyaan waa ragga soo maleegaya system kasta iyo nidaam kasta oo garxajis la doonayay in lagu mitaxaabiyo siyaasadooda dhaqaalahooda degaamadooda waa ragga soo maleegaya maanta ujeeddada lala yidhi maydh baa la tegay oo dekad baanu didhisaynaa iyo ood weynaanu baan ka dhisnay iyo ood weynaanu wadda 30 kilomitir oo burciyo ood weyna isku xidho samaynaynaa daacad kama aha haddii la dhisana cashuurtaadii baa lagu dhisay ninna marti ugama tihid ninna ku ammaani maysid ninna ku raaligeli maysid xaasha haddaad garan weydo waxaad adigu leeday aad nin kale ku ammaanto oo aad u haysto inuu wuxuu leeyahay ku siinayo aday ceeb ku qotay baan kolay idin sheegaya anigu jallaafooyinkayd ku socdaa iyo nidaamka ooda weyne laysaga daba noqonayaa ee kolba meel camuud iyo rays lagu dhigayaa ee kolba xabad jaajuura 30 nin oo garxajis isugu tagaya waa xabad jaajuura wallaahi 30 nin baa darafyada haya oo garxajis ood moodaa in jannadii la siiyey ood moodaa in maxay loo qabtay hadda waa xabad jaajuura
أطباق والحبة تشاتشوري علوصة بانر وباش علوصة موقف كورة أودي بان هديجة صدم بان نبك هورا كودي حبة تشاتشور كاي ميلك على قبصة أي حبة تشاتشور كاي لواي مركي لديجة من الله ميلك على قبصة دام بالواي وحاها راها يستمعها هاي وقرحتش وقفور علوص تندي شيء وكوا مركا إنا بيحي وسيدا قرك أتاجو سيدا مركو قرك أتاجو ودتك عايو وكوا يجونا قرك وكوا يجونا مدح فورية يبوياكتي كلمات كمشغولة وقار شيدان دولي وقار عروشو ده دوليسن وقار تدنيمادو كتكتوي عادي قلنا سياسة بدو تقنايو والله وحبو قار باي مكله والله وحبو قبتيو سوكي مير باد كديو والله وحبو قبتيو سوكا ودada dhisay والله ورياره يا سلام قولدان وليبا anigu garxaj isku daray maayo qolada habriyoonis waa bashuux ورياره dhalinyaradan la hadlaya anigu dadka waaweyn ee future-koodii iyo noloshoodii soo dhameystay calooshooda uun ka fakarayay afartooda caruura meel ay ku haystaan uun ka fakarayay aan danaynayn ee aynu aragnay noocayihiin la hadli maayo anigu waxaan la hadlayaa dhalinyarada waxaan leeyahay laba qodob baan idin samaystay adduunka dawladnimadu waa laba war midkaa qorta adduunka dawladnimadu waa laba waa ciidan iyo dhaqaale waa ciidan iyo dhaqaale soddon sannadood ka hor baan ka fakiray oo ciidankiina samaystay dhaqaalena samaystay oo waliba dhaqaalo waa kii ma mid iyagu soo baryeenba ma mid lagu caawiya kii adigu aad lahayd bay qasrad ku urursadeen ee ku dhaad annaga wax soo saar laho ha waa meelihii ugu dadka yaraa waa meelihii ugu baableeshka yaraa waa meelihii ugu cashuur bixinta yaraa waa laga dhaadhiciyey idaa laga iibi waxaan idinka digayaa uun absolutely inaa laba shay iska ilaalisaan ka digtoonataan inaydun cashuurtiina cid marti uga noqotaan oo laydinku bedelo oo cod laydinkaga doono oo taageero laydinkaga doono oo aad tidhahdaan maanta hayaay wallaahi kulmiyaa waddan noo dhisay wallaahi inaad de kulmiyo had mooday maaha waa kulmiyo bilaa araba waa kulmiyo bilaa habar jeclaa waa kulmiyo heega ah waa reer markaa heegaa meel noo dhistay ina bixiba waxa noo dhisay now maaha ha u rixin ha ugu nacamlayn ha ku ammaanin waxaad ogaataa waxa lagu dhisayaa waa xaqaagii waa cashuurtaadii inta kaa soo gaadhayna ka dhiso inta kalena keen ku dhow kula xisaabta ha isku dhex qabsanina ood weynaa ood qaar maxmad garato oo aad u liita ayaa waxay ku leeyihin ood weynay laga xun yahay war ma nin garxajiisa baa ood weynay horumarkiisa ka xun what the fuck is wrong with you waxaan idiin sheegayaa shay baan ku celceliyaa aan ka digaa saddexdaan inaan idiin sheegay waa idinka digaya saddexdaan nin ilaa iyo dawladdii maxamed xaaji ibraahim cigaal ee jallaafooyinka dhigtay tii riyaale dhab libaax tii silaanyo iyo tan maanta intaba waa laydii adeegsanaya saddexdaan nin intay nool yihiin waa laydii adeegsanaya waa saddex caadi qaate waa saddex iyagu gebigooduba naftoodu ka fakera waa saddexda nin iyadoo xabaddu kugu socoto oo dagaal soconayo saddexda nin soo dhinac fadhiye weeye waa saddexda nin ina riyaale gacanta wax walba u geliyay halkaa fadhiye weeye waa saddexda nin ee noocaa u shaqeeya waxaan idinka digayaa inaydaan sacabka u tumin waa gafuur culus waa gafuur culus waa gafuur culus inan yar oo khayrkoodii markuu gafuurka kor u taago hoos foorasta waxaan kaloo idinka digayaa ha ku mashquulina furfurka garxajis loogu talagalay in la furfuro iyo furfurka waliba loogu talagalay xusbiga wadani xusbiga la dhada waxa weeye waa xusbi xal ah waa xal Soomaaliland maanta xal buu yahay wuxuu xal ugu yahay kulmiye la arag soo dalka soo baabiyay waa xusbi xal ah oo qof kasta oo reer Soomaaliland inuu maanta ku badbaadiyo dalka oo xusbiga u codeeyo uu ku khasban yahay oo habaryo ninka xal doonaya Soomaaliland ay sii jirto waa in wadan u codeeya waa xal de waa xal haddaan ku mari waa wax saxan laakiin waa xal baan ku in lagaga furfuro dalkan lagu leeyahay labadii kastam anaa leh ya cashuurta ka soo baxayso cashuurtii anaa leh
lagu leeyahay ciidankii anaa leh ee lagu leeyahay ma garanaysaay maxkamaddii anaa leh ee lagu leeyahay madaxtooyadii anaa leh in nooc kasta lagula shaqaynayo war ninka kuli madaxtooyadii anigaa leh ciidankii madaxtooyada haystay maxaa cali bilow ku hor kaajiyay meel walba isku sawiraya war ninka kule labadii kastamee dhaqaalihii ku jiray anigaa leh war ninka kule maxkamaddii anigaa leh war ninka kule ciidankii qaranka anigaa leh war ninka kule hargeysa oo caasimaddii anigaa leh war ninka kule maayarkii anigaa leh war ninka kule wasaaraddii lacagtaba aynu dhiganaynay anigaa leh intaaba ninka kulabaada weli gafuurka hoos gafuuranaysa waxaynu ka hadlaynaa waa waxaynu xaq u leenay waxaynu baryayna maaha wuxuu yidhi cibaadaysaan ciddiga ku hayay daniba igu cilin ciyaari war markaanu waxaa aragno aanu muddo ka aamusno inaanu saano war ka yara gababa dusha ka eegno waxaanu arkaynaa 20 gafuur culusa oo calooshadu shaqaystayaala oo 30 sannadood garxajis jalaafo u dhigayay oo ragga loo isticmaalaa oo carruurtii sacabka u tumayso ka digtoonaada in laydii qaybiyo garxajiso in laydii qaybiyo laydii ku qaybiyo wado iyo meel baa laydii dhisay in laydii ku qaybiyo guri yaroo 2 fooq oo la dhahdo waa oodwaan laga dhiso waa baan in laydii ku qaybiyo cashuurtiinii wax laga dhisayo idinku aaleedii laydii ku qaybiyo oo ay ku qaybsantaan oo iska hor timaadaan no iska ilaaliya waxa ogaataan waxa la dhisayo xaq baa u leedin waa wixiini waa cashuurtiinii waxa ogaataan in sababta kaliya loo dhisay ay tahay 2 qodob ku noqoshada oodweyne waa 2 qodob waa soo ururinaya waa 2 qodob in wadani laga fogeeyo cid kasta oo kulbiya ka soo gooday waa qodob 2 in garxaj lagu fufro labada qodob baa looga danlay ka digtoonaada waxaan dileeyahay insha Allah tan iyo martaba ismaqli wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته وأضيق سلام على بلاد